Kan yar oo u dhow tuuladan waxaa ku noolaan jiray shaydaan yar, isla markaana waxuu ahaa shaydaan yar oo aad iyo aad u dhib badan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa isagoo geed saaran waxaa u soo uray isla markaana u soo carfay sambuus oo uu wiil yar madaxa ku watay, isla markaana ula dhex socday kaynta uu shaydaankan yar ku nool yahay. Isla markaana shaydaankii yaraa ayaa waxa uu isweydiiyey, waxaan soo carfayaa xaggay ka soo socdaan? Waana soo duulay wuuna u raadiyey. Nasiib wanaag waxa uu arkay wiil yar oo sambuus madaxa ku sida, isla markaana u wada tuulo yar oo u dhow. Shaydaankii yaraa waa uu farxay, waxaana uu yidhi, maanta way dhacatay, inankan yar waxa ma kala oga, waxaasoo sambuusana aniga ayaa cunaya. Waana uu soo duulay, wuxuu dhex galay sambuuskii baash yareed oo ku siday. Wixii oo dhan intuu cunay ayuu halkiisa ku noqday. Wiilkii yaraana wuxuu dareemay baalkii madaxa ku siday oo faaruqa, isla markaana wuu yaabay. Wuxuu yidhi, baalka maxaa fudayd ka dhigay? Sookii baalka cuslaa. Wuuna soo dejiyey, wuuna eegay, laakiin waxba wuu ka waayay. Markii waxba uu ka waayay wuu yaabay, wuu naxay. Wuxuu yidhi, talow miyay kaa soo daateen? Intaad waddada soo socotay ayay kaa soo daateen. Waa macquul maaha sidaan. Dabeetana geedkii shaydaanku saarnaa agtiisa ayuu qaylo ka maqlay, waxaanu isweydiiyey, talow waxa meeshaan ku jira waa maxay? Laakiinse shaydaankii ayaa la hadlay, wuxuu yidhi, sambuuskaaga oo dhan anigaa cunay, waxba kama reebin, anigaana cunay. Wuuna soo baxay, isla markiina wuxuu yidhi, anigaa cunay sambuuskaagii. Wuuna ku qayliyey. Inankii yaraa wuu cararay isagoo baqanaya, wuxuuna tuuray baashii sambuuska ugu jirtay. Isla markaana markuu cabaar sii cararay ayuu kasoo daba duulay. Shaydaankii yaraa dhibka badnaa wuu ku qoslay, isla markaana wuxuu bilaabay dadkii tuulada inuu saa u eryado habeenkii marka la gaadho. Markastaba dadka wuu ku ciyaari jiray. Dadkii tuuladan yar joogayna way ka qaxeen, isaga awgii ayay uga carareen. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaa laba nin oo saaxiibo ahaa ayaa soo wada dhex maray kayntii iyagoo wata sambuus, isla markaana doonayana ka soo iibiyaan ama u iibgeeyaan tuulada ku xigta. Cabaar kadib nimankii daal ayay dareemeen, isla markaana waxay damceen inay halkan geedkan hoostiisa ku yara nastaan. Mid ka mid ah wuxuu ku yidhi, saaxiib, waa nin badan baa noo dhimanay, aan iska yara nasanno, xoogaa ma iska seexano, waa duhure, cadceedda kulushahay, bal waaye aan iska seexano, ayuu kii kalena ku jawaabay. Isla markaana waxay isku waafaqeen in ay geedkan hoostiisa yara seexdaan oo ku yara nastaan, isla markaana inta laga gaadhay casarka ay halkan ku nastaan. Kadibna xoogaa markay halkan ku nastaan ay isaga tagaan. Laakiin mid ka mid ah ayaa wuxuu yidhi, anu alaabtaas noo soo qaad, yaa nagala cunne, waxaan ka cabsanay meeshan waa meel cidla, alaabta agteena ha taalo, halkaasna aan ku ilaashano. Isla markiiba waxay bilaabeen in ay halkii fadhiistaan. Laakiinse shaydaankii yaraa ayaa waxaa u soo urtay sambuuskii iyo alaabtii yareed, quraacii macmacaankii, isagoo geedkii dul saaran. Isla markaana waxa uu yidhi, waryaalaheen maantana qaar baa shabaqa igu jira, isla markaana waxaan ka soo cunayaa waxa alaabta meesha ugu jirto dhan. Shaydaankii yaraa wuu aad ayuu u farxay. Hase ahaatee labada ninna waxa ma kala ogaa oo way seexdeen, wayna gam'een. Hase ahaatee carafta macmacaankii meesha ku jirta iyo dhadhanka cuntada ayaa aad ugu soo carfay. Isla markaana shaydaankii yaraa waxa uu damcay intay hurdaan in uu soo dego, isla markaana iyagoo hurda oo aan dareemeyn alaabtooda dhammaanteed cuno. Macmacaanka meesha ku jiro dhan aad iyo aad ayuu farxay. Wixii oo dhan siduu kolba mid u qaadanayay ayuu dhameeyey. Isla markaana sanduuqyadii yaryaraad ama quraaradii yaraa ee alaabta macmacaanka ugu jirtay ayaa faaruq noqdayba. Wixii oo dhan wuu cunay. Laakiin wuxuu yidhi, nimankan waa iska hurdaanba ka waran, waxba ma kala oga, waxoodii dhan waan cunay. Allah miskiinsanaa, balaag marka maan soo reebin. Uu qoslay isla markaana isagoo ku jeejeesaya labadii nin. Isla markaana waxa uu bilaabay in uu cagihiisa ku garaaco dhulka si ay u maqlaan dhawaqiisa ama waxyaabaha uu xidhan yahay ugu soo toosaan. Mid ka mid ah ayaa soo kacay nimankii, isla markaana wuu waayay.
wax shanqara ayaa dhegdeg ku soo dhacday isagoo hurda. Ninkii kale saaxiibkii ayuu toosiyey, wuxuuna yidhi waaryaa cali ka kac bal ka kac. cali baa ka kacay isla markaana waxaana uu yidhi waaryaa faarax maxaad kala baqanaysaa, meeshu waa kiin. wuxuu yidhi waxa ma ogide, meesha waxbaa maraya, qof baa meeshan marmarayay. ninkii cali wuu yaabay, meeshii oo dhan buu eegay, waxna uu ka waayay. wuxuu yidhi niyow waxbaa meelahan kolleyda waxa weeyaan meesha maraya, niyow naga daa aan kaa seexan haddaba. wuu iska seexday cali. hase haatee faarax ayaa weli wuxuu ku yidhi wani waxa ma kala ogide, bal waan arki doonaa, waad arki doontaa, qof ayaa meeshan marayay. wuuna iska seexday. kadibna waxay sii wateen hurdadoodii. isla markaana shaydaankii yaraa ayaa haddana arkayo, wuxuu yidhi waniyow nimankan maanta waan ku ciyaaraya, hurdadan ka qasaya isagoo ku jeesjeesaya. isla markiina wuxuu bilaabay inuu lugihiisa ku garaaco dhulka. ilbiriqsigiiba isla markii way soo kaceen, waxayna eegeen hareeraha. cali ayaa wuxuu yidhi war heedhe, war saa sheegaysa weyaane, kaynta waa lagu jiraa. faarax ayaa baqay oo gariiray, wuxuuna yidhi balaag waxaan kuu sheegay weeyaan, bal maxaan kuu sheegaynay, waa sax waxaan kuu sheegaynay balaag. faarax ayaa wuxuu yidhi war iska aamus, anaa garanaya, anaa la gurinaya kuwaana iska daa, iska aamus, aduu waxba kala garamayside, waxbaa baqan saaxiiba, iska aamus. isla markiiba shaydaankii yaraa oo geed saaran ayaa dhulka kusoo degay. balse ninkii caliha aad ayuu u xanaaqay, wuuna la yaabay shaydaankan yar ee noocan u eg. shaydaankii yar ayaa hadlay, wuxuu yidhi waryaalahan, war wixii meeshayda kuu jiro o dhan anigaa cunay, wax kastana meeshan kayntana aniga ayaa boqorkaa, cid haba yaraatee aniga ii dhiganta ma jirto, labadiinana maanta waa idi cunayaa. faarax oo gariiraya ayaa wuxuu yidhi walaalo waxaad rabtid waan ku siinaynaa, walaalo hana cunin. shaydaankii yaraa wuxuu yidhi intuu ku qoslay wuxuu yidhi war waxaas anuma soconaysaniyo ee maanta bal cid ay kala celiso. hasaatee cali ayaa fikiray, wuxuu yidhi iska daa, qorshaan kuu keenabe, waniba mid baan kuu sheegayaa, arrin yar baan doonaya inaan kuu sheego. wuxuu yidhi maxaad ii sheegaysaa dee, maxaad leedahay marka anigu adeer nin adag baan ahay, waxaad moodaysaa ciyaal yaroo lagu ciyaaro. isagoo ku qoslaya cali isla markaana kusii jeesjeesaya. cali ayaa wuxuu yidhi war bal ka waran haddii aan qorsho fiican kuu sheego, isla markaana aad anigana iska kaadayso, adigana lacag fara badan aad ku yeelato, taajirna aad noqoto. shaydaankii yaraa wuu yaabay, wuxuu yidhi bal waayahe ninkan wuxuu sheegayo waa maxay tarow. wuu yaabay. cali ayaa wuxuu ku yidhi waxaan ku hayaa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo xitaa aad ku helayso maalin walba waxaad cunto macmacaan ay nooc. markaas wuxuu yidhi soo daabal. waaye wuxuu yidhi bal halkan maaragtaa gal, anugu sixirkan yaqaanaa, markaad gasho waxaad dhex gelaysaa beer weyn oo dahaba iyo waxyaabo fara badan oo macmacaana ay ka buuxaan. shaydaankii yaraa isagoo hungurigiisii qaaday ayuu soo dhex galay quraaradii yareed ama dhaaladii yareed. cumarna calina wuu ku daboolay. isla markaana shaydaankii yaraa wuu iska ooyey, meeshii dhexdiisii ayuu ku dhex jiraa, kamana soo bixi karo. wuxuu yidhi waryaa waad khiyaantay. cali ayaa wuxuu bal waxaas eega, waxaasa annaga waxaan kuri noo hanjabaya. waxaanuu yidhi bal intaad laegta eeg, annagaad noo doonaysaa inaad na wareeriso, annagaad maskaxda na qabsatay. shaydaankii yaraa wuu qayliyey, laakiin hadalkii way ka guri waayeen, halkooduna iska seexdeen. kadibna way iska soo noqdeen iyagoo bahaladoodii faaruq yahay. laakiin waxay yimaadeen tuuladii, isla markaana dadkii ayaa soo dhaweeyey, waxayna keeneen shaydaankii yaraa oo quraarad ku jira ama dhalo ku jira. ugu dambeyn cali fikirkiisii ayaa shaydaankii yaraa uu kaga guulaystay. halkaasna sheekadii way ku dhammaatay.